قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما. إلهي وحو قرآن كينا وقت المامي وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير. إلهي وحو نقول ربي يا نبي داود والشنبره يبور الله تصبيح سنيين بل القرآن وحو نوشيغيا الكائنات كلها إن تصبيح سنة قورما وقت والبوالة تصبيح سنة حالة كستاد كتشرته مركاد يابتا سبحان الله الله يدهده مركاد نبيكو قبصتا سبحان الله وبحمده الله يدهده مركاد الفؤاد تكلما واجم من الفرح الذي غطاه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسكم ما أنت وحكوسها بسيسية التصبيح. وحانا ندورتي بشان رمضان ما دام اللي جره هي عالم الإسلامي ما أنت وحكى الصعدة دراديد به. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكوت المامي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. naf dhammaanteed geeri bay dhadhamin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo noloshan aynu ku jirno hadday qadhaadh iyo hadday macaantay hadday adagtay iyo hadday fududdahay hadday dhab kuula muuqato iyo hadday dheeldheel kuula muuqataba ilaahay wuxuu leeyahay geeraa ka dambaysa. waxaanan idinku itixaamayaa baa ilaahay leeyahay bishari waalkhayr sharka iyo khayrka labadaba waa idinku itixaamayaa baa la leeyahay subxaana wa tacaala. khayr waa lagugu itixaami oo nimciyo badhaadha lagugu itixaami sidii nebi sulaymaanba loogu itixaamay oo weliba imtixaanada qaarkood innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi uu tilmaamayay ilaa uu dalbaday mid ka weyn imtixaan ka weynina la geliyo oo ilaahay subxaana wa tacaala geliyo uu ku guulaystay dabeetana nicma alcabdu innahu awaaba la ku sifeeyey. dhib iyo imtixaan baa lagugu itixaami sida ambiyo kaloo badan qur-aanka ilaahay kaga warramay qaar la dilay qaar bukooday qaar la xidhay qaar la caymadiyey qaar dalka laga saaray qaar dab lagu riday mashaakil oo dhan baa ilaahay ka warramay. haddaba mushkilaadkan iyo tasbiixda aan cinwaanka ka dhigtay maxaa ka dhexeeya? waxaa ka dhexeeya insaanku sidiisaba dhibta ilaahay subxaana wa tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim innagaa layna faray inaynu dadaallo laakiin markaynu dadaalkan la nimaadno waxaa layna faray inaynu ilaahay tala saaranno. waxaa kaloo intaa ka dambaysa qofku wuxuu mas-uulka yahay inta awooddiisa ah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha. haddana adigoo aan mas-uuliyadba gabin ayaad cadhogami waayi markaad aragto muslim cunaan la hayo iyo dad dhanoo muslimiinoo la baabi'iyey dumar iyo carruur la tirtiray dad gawaadhi la dulmariyey qaar dayurada lagu garaacay qaar kaarayaa laga dulboodsiiyey qaar naabaa lagu riday wax kasta markaad aragto naftu diiqad bay dareemaysaa ayaa cidhiidhi haddii muslimnimo inuun kugu hadhsantay.
qofku inuu psychologically u dhiboodaana waa dhibabka ka mid ah laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala tiryaaq iyo dawo inaga siiyey laysku daweeyo dadka se in badan ay hilmaameen ilaahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jeesjeesay ee dhib oo dhan loo geystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla qisas qur-aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa ah tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah ilaahay nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay fasdac bima tu'mar waacrid can almushrikiin inna kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara fasawfa yaclamuun aduu xaqa sheeg baa la yidhi annaga kaaga filan kuwan dheeldheelaya kuwa ilaahay khayrkii caabudaya diinla'aanta u baxay laakiin haddana ilaahay wuxuu tilmaamay isagu intii saarayd markii la yidhi sheeg waxa kaloo loo tilmaamay dhib kale uu dareemaya haddana inay jirto walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk baa ilaahay yidhi waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi in laabtu ku cidhiidhiyoomayso oosaanay laabtu u cidhiidhiyoobin iyadoo dawi lqurba iyo intii ugu dhoweyd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhowi intuu ku dabagalo halkaad istaagtaba u yidhaahda waa beenti kan yarana adeer u ah nebi moxamed adeerkii rumaa daba socday abilahab oo halkuu istaagaba leh waa beentii wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxa loo diiday inuu wax sheegi karo waxa la gaadhsiiyey xad bulshada laga dhaadhiciyo inuu waalan yahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun ay yidhaahdaan tufayl ibnu camar waynu garanayna inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalaya ama wax sixro damaad waynu garanaynaa inuu nebigaba u yimo yidhi war waxa la yidhi waxoogaa waaliyaa ku haystay aan ku daweeyo riixdaan tufaayo waxbaan akhriyaayo cidhiidhiga uu nebigu dareemaya calayhi salaatu wasalaam intuu leegyahay dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabu samaawaati walardi laga gaaloobayana wuu taagan yahay lacallaka baakhicu nafsak ilaahay ku leeyay naftaadaad cidhiidhi gelinaysa ama halaagaysa inay rumayn waayaan alle subxaanahu wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsaa la yidhi adigoo ku dheehaya ama se ku maraya mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala التصبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدو إلهي عيب يحمى كديرين يبال لي سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنطمن وحي النقائسة وحي اللي دشاي عن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن الزهده حمدنا وعكس كذا وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سونكسنا دقوم حديثه وأتكو أمانته هو الثناء إذن ونفي إثبات وذا الصعدة وسلبي إيجاب وإلهي سبحانه وتعالى هداد حمكر يريسه وناقنا أظن نسبيسه وأتكا كور ديدبا إلهي سبحانه وتعالى وحي داوك آغتا هيضيق الصدرك كوهيستا الله بعديدك وكن من الساجدين فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحنا بقي سكوير الصبر وحي كوهد ليامك صبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو
بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك كبري النبي عليه الصلاة والسلام يا نقبة رضا النفس هي التسبيح دويني وذا الصعدان في سورة طه إلهي محوليه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى بإله إلهي سبحانه وتعالى تسبيح لك عليه أدقوا كمر يا إلهي حمدي